magacaygu waxa weeye Hibaaq Cabdilqaadir Koosaar xaafadan waxaan ku leeyahay reerkan hindida aad la hadlayseen guriga ka dambeeya ina faara xarbi anigu cagahaygaan ugu tagay waxaan ku yiri in adeer labada wado ee hawd ka imanaya hadii lagu xiray tan saldhiga dhaxaydin dhaxaysa hanaga xirin wuxuu yiri gabadhii waxaan wado ku hayaa ma jirto marka waxay ahayd February markaan u tagay intii waxaan isku haleynayay in amniga awgeed saldhiga dhexe inaanu u soo dhawaanaynin 8 mitir u dhaxaysay hase ahaatee imika waxay soo gaadhay in uu keenay file uu madaxweynuhu Axmed Maxamuud Silaaye uu ku saxeexan yahay oo saldhiga dhexe 2 mitir oo kaliya loo banaynayo waxaan isku dayay marka inaan hawlaha guud la xiriirno waayo wuxuu yiri dawladda dhaxa iga iibsay aniga igu yiri waxaan ku yiri in adeer wada laga iibiyay adigu waan ku kala tagnay markuu yiri waxa wado aan ku hayaa ma jirto marka hadii ay dhacdoba in boostii salaan jirde ay ilma salaan jirde ay ka xishoodeen inay ku qabsadaan maadaama muxuu ahaa dan guud uu bixiyay aabahood oo ninka ina faara xarbi dawladii dhexe ka iibsaday waxa nasiib darro ah inuu wadadii saldhiga u dhaxaysay boosta u dhaxaysayna uu ku darsaday oo meel imika xaafadayada meydka loo mariyaa haba yaraatee aanay jirin hadii ay guri naga gubtana meel uu noo soo maro dabdamiski aanay jirin horta taasi waa nasiib darro waxaan kaloo ku darayaa madaxweynaha cabir baa loo geeyay oo la hordhigay oo lagu yiri waa taa boosti isagu ma oga in muxuu ahaa wada loogu daray marka waxaan doonayaa inaan la hadlo wasiirada Maxamuud Xaashi iyo Cali Mareexaan ee wadadan u xiray ee hordhigay madaxweynaha 2 mitir oo kaliya saldhigi ka soo ka ayumba muxuu ahaa laga soo kacaya ee uu saxeexay boostadii loogu daray wadooyinkii waxaan leeyahay madaxweynaha magaca haka xumaynina legasigiisa haka xumaynina ragna waxay bixiyeen oo dan guud u bixiyeen saldhigi dhexe iyo boosti ma aha in berita la yiraahdo taariikhda inay u gasho madaxweyne Silaaye ayaa inaadeerkii u xiray oo saldhigi amnigiisina khalkhal galiyay xaafadii dadkii deganaana wadadii ka xiray waa ceeb weyn weeye aniga adeer buu yahay Silaaye aabahay buu la soo halgamay waa nimankii ka damqaday dulmiga ay dadka masaakiinta soo kale ay ku noolaayeen xilligii Siyaad Barre oo duurka u wada galay dulmigii maanta in isaga magaciisa nalagu dulmiyo waa nasiib darro weeye nimankan muxuu ahaa Maxamuud Xaashi iyo Cali Mareexaan waxaan leeyahay magaca ka xumaynina Silaaye dalkan uu soo halgamay sumcad waa inuu kaga tago madaxweynenimadiisa iyo dawladdiisa marka waxaan idin leeyahay ka xishooda oo ninkan aad muxuu ahaa ina faara xarbi ee aad wadooyinka u xiraysaan ka joojiya imikana hadii waxba laga qaban waayana waxaan leeyahay shacab weynaha Hargeysa saldhiga dhexe badbaadiya siday reer Burcaba u badbaadiyeen saldhigoodii dhexe wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh